ku soo dhawaada muuqaal kale oo xiiso leh. Maanta waxaan ka hadli doonaa Luxembourg, dal yar oo caan ku ah dhaqaalihiisa hodanka ah, taariikhdiisa faca weyn iyo goobaha quruxda badan ee loo dalxiiso. Haddii aad xiisaynayso xog ku saabsan dalkan Luxembourg, muuqaalkan adiga iska leh. Fadlan daawadayaana ku dhaafin, waxaan ku faahfaahin doonaa waxyaabo badan oo aanad ka aqoon dalka yar ee hodanka ah. Luxembourg waa dal yar oo taariikhdiisu soo bilaabatay sanadkii 963 markii Count Siegfried uu dhistay qalcadda Luxembourg. Intii lagu jiray qarnigii 14aad, Luxembourg waxay soo saartay boqorro Roomaan ah, waxaana ka mid ahaa Emperor Charles-kii afraad. Waxa ay soo martay Luxembourg gumeysi kala duwan sida Faransiiska iyo Habsburg, balse dalkan yari madax bannaani buuxda waxa uu helay sanadkii 1867. Maanta Luxembourg waa boqortooyo dastuuri ah oo hodan ah. Luxembourg waxay ku taallaa galbeedka Yurub, waana dal ku yaala meel istiraatiiji ah. Luxembourg waxay la wadaagtaa 3 dal. Waqooyi galbeed waxaa ka xiga dalka Belgium, dhinaca bari waxaa ka xiga dalka Germany, sidoo kale waxaa koonfur kaga beegan dalka Faransiiska. Luxembourg waa dal xidhan oo aan lahayn bad, sababo la xidhiidha juqraafiga iyo taariikhda gobolka. Dalka Luxembourg waa mid ka mid ah dalalka ugu yar Yurub, isagoo leh dhul cabirkiisu gaarayo 2586 kiiloomitir oo laba jibbaar. Luxembourg waa dal yar oo qani ah. Tirada dadka Luxembourg qiyaastii waa 660,000 oo qof, sida ay qortay hay'adda qaramada midoobay sanadkan 2024. dadka ku nool dalkan yari intooda badani waa ajaanib ka kala yimid dalal kala duwan. Caasimadda Luxembourg waa magaalada Luxembourg City, waana xarunta siyaasadda, dhaqaalaha iyo taariikhda ee dalka. Sidoo kale waa hoyga hay'ado badan oo caalami ah sida Maxkamadda Cadaaladda Yurub iyo qalcadda caanka ah ee Fortress of Luxembourg. Luxembourg City waa magaalada ugu muhiimsan ee isku xidha dhaqanka iyo horumarka casriga ah ee dalkan yar. Magaalada Esch-sur-Alzette waa magaalada labaad ee ugu weyn dalkan Luxembourg, taasoo ku taalla koonfurta Luxembourg, waana xarunta warshadaha iyo hal-abuurka. Magaaladan waxay hoy u tahay jaamacadda caalamiga ah ee University of Luxembourg iyo xarumo cilmi baadhis. Waxaa kaloo ay caan ku tahay barnaamijyada hal-abuurka iyo farshaxanka casriga ah, gaar ahaan aagga Belleville oo ah aag casri ah oo soo jiita dalxiisayaasha. sida laga soo xigtay xogtii ugu dambeysay, GDP-ga guud ee Luxembourg waxa uu gaarayaa qiyaastii 92 bilyan. Dakhliga sanadlaha ee qofka ku nool Luxembourg waa mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya adduunka, oo gaaraya ku dhowaad $143,000 sanadkii. Shaqaalaha Luxembourg waxay helaan mushahar wanaagsan, iyadoo celceliska mushaharka sanadlaha uu aad uga sarreeya kan wadamada kale Yurub. Celceliska mushaharka sanadlaha ee shaqaalaha Luxembourg waxa uu ku dhow yahay $27,439, taasoo u dhiganta qiyaastii $6,036 bishii. Si kastaba ha ahaatee, mushaharka dhabta ah waxa uu ku xidhan yahay nooca shaqada, waayo-aragnimada iyo heerka waxbarashada. Waxaa xusid mudan in mushaharka ugu yar ee sharciga ee Luxembourg uu yahay mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya Yurub. Laga soo bilaabo sanadkii 2024, mushaharka ugu yar ee qof ka shaqeeya Luxembourg waa qiyaastii $2,626 bishii. Tani waxa ay ka turjumaysaa dadaalka dowladda Luxembourg ee ah hubinta in dhammaan shaqaalaheedu ay helaan mushahar ku filan nolol maalmeedkooda. Luxembourg waxay hoy u tahay shirkado caalami ah oo caan ah, kuwaasoo ay ka mid yihiin ArcelorMittal, shirkadda ugu weyn ee birta iyo macdanta adduunka; RTL Group, shirkadda warbaahinta ugu weyn Yurub. Sidoo kale, Luxembourg waxay saldhig u tahay shirkadaha SKB iyo Amazon. Luxembourg waxay tusaale u tahay sida waddan yar oo aan lahayn kheyraad dabiici uu u noqon karo mid leh dhaqaale xooggan iyo saameyn caalami ah. Waxbarashadu waa lacag la'aan laga bilaabo dugsiga hoose ilaa heer jaamacadeed. Waxbarashada Luxembourg 3 luqadood ayaa lagu dhigtaa: Faransiiska, Jarmalka iyo Luxembourgishka, taasoo muujinaysa isku dhafka dhaqamada dalkan. Jaamacadaha ugu caansan waxaa ka mid ah jaamacadda University of Luxembourg oo bixisa waxbarasho tayo wanaagsan leh oo dunidu ku soo hirato.
jaamacaddan waxay caan ku tahay cilmi baadhista iyo iskaashiga caalamiga. Luxembourg waxaa isku dheeli tirtay waxbarashada tayada sare leh iyo horumarinta tiknoolajiyadda casrigan, taasoo ka dhigaysa dalkan yar meel soo jiidata oo ay xiiseeyaan ardayda, xirfadlayaasha iyo shirkadaha tiknoolajiyaddu. macadka maalgashiga joogtada ah ee waxbarashada iyo tiknoolajiyadda, kaasoo loo soo gaabiyo EIT, ayaa hubinaya in Luxembourg ay sii wado horumarinteeda aqoonta casriga ah si ay uga mid noqoto hormuudka casriga ah ee adduunka iyo Yurub. Luxembourg waa dal laga helo meelo badan oo dalxiiska loo tago, waxaana ka mid ah goobaha caanka ee lagu tamashleeyo qalcadda Finta, qasrigan taariikhiga ah oo ku yaalla buuraha kuna habboon dadka jecel taariikhda iyo muuqaalada dabiiciga. sidoo kale waxaa laga helaa Muller Trail oo ah goob loo yaqaano Switzerland Luxembourg, oo leh waddooyin ashqaraar ah iyo buuro qurux badan. goobtan oo leh waddooyin ka kooban 112 kilomitir ayaa ah goob cajiib ah. magaalada Luxembourg City waa magaalo ay ku yaalaan qalcado, gundooyin waaweyn iyo xarumo taariikhi ah oo qayb ka ah liiska dhaxalka adduunka ee aqoonsan tahay hay'adda UNESCO. sidoo kale qalcadda Burgstadt waa mid ka mid ah qalcadaha ugu waaweyn dalka, taasoo ay xiiseeyaan dadka jecel daawashada goobaha taariikhiga ah. buurta Knife waa halka ugu sarreysa dalka Luxembourg, waxay ku taallaa waqooyiga Luxembourg meel dhow magaalada Wilbringe ee gobolka Ossiling. buurtan yar ee Knife dhererkeedu waa 560 mitir oo ka sarreeya heerka badda ku dhowaad 1837 feet. inkasta oo Knife loo aqoonsan yahay meesha ugu sarreysa Luxembourg, haddana mar ayaa buurta kale ee Gablatais loo aqoonsanaa buurta ugu dheer dalka Luxembourg, maadaama uu dhererka labada buurood aad isugu dhow yahay. buurta Knife waa meel caan ah oo ay booqdaan dadka xiiseeya juqraafiga iyo deegaanada leh quruxda dabiiciga. Knife sidoo kale waxay calaamad u tahay meesha ugu sarreysa qaranka yar ee Luxembourg. sidoo kale webiga ugu dheer Luxembourg waa webiga Mosel, waana mid muhiim u ah ganacsiga dalxiiska, gaar ahaan wax soo saarka beeraha. webiga Mosel wuxuu sameeyaa xadka u dhexeeya Jarmalka iyo Luxembourg. haddii aad xiiseynayso inaad ku noolaato Luxembourg, waxaad ku heli kartaa sharciga dalka Luxembourg adigoo raacaya mid ka mid ah hababka soo socda. haddii aad guursato muwaadin ama muwaadin reer Luxembourg ah, waxaad dalban kartaa sharciga dalka, iyadoo laga yaabo in loo baahan karo shuruudo gaar ah in la buuxiyo si inaad wada noolaataan muddo cayiman. haddii aad haysato shaqo rasmi ah oo joogtaa, isla markaana aad dalka ku noolayd muddo u dhaxaysa 5 ilaa 7 sano, waxaad xaq u yeelan kartaa inaad sharciga dalbato. sharcigan wuxuu ku xidhan yahay inaad buuxiso shuruudo dheeraad ah sida isku xidhka arrimaha bulshada iyo luuqadda. waxaad heli kartaa dhalashada Luxembourg haddii mid ka mid ah waalidkaagu uu yahay muwaadin reer Luxembourg ah. balse arrinta cajiibka waxay tahay haddii aad sharciga Luxembourg ka tanaasusho ama dowladdu kaala noqoto, dib ayaad ka soo dalban kartaa oo waxaad xaq u leedahay in mar labaad sharciga lagu siiyo. Luxembourg waa dal yar balse leh taariikh fac weyn, dhaqaale xooggan iyo nolol heer sare ah. Luxembourg waa meel ku habboon dalxiiska, waxbarashada iyo shaqooyinka.